Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada jaalka maalmaha. Waxaan idin wadaagaynaa qiso aad u xiiso badan oo ay ku jirto waana cibra qaadasho. Qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay in la iska ilaaliyo ilmaha agoonta xaqooda. Haweeney ayaa Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu siiyay wiil aad u qurux badan, balse nasiib daro markii ay dhashay ayaa haweeneydani waxa u timid geeridii. Markii ay sakaraadiisay ayay ninkeeda waxay ku tiri, wiilkayga adiga ayaan kugu ogahay, yuusan dareemin inay hooyadii dhimatay. Hooyadii waa ay dhimatay, waxaana isku soo haray wiilkii yaraa iyo aabihii. Wiilkani ayaa waxaa loo bixiyay Axmed. Axmed aabihii wuxuu la noolaa 1 sano. Aabihii aad ayuu u jeclaaday Axmed. Sanad kadib aabihii wuxuu ku fikiray inuu xaas kala guursado si uu u helo qof cunuga u xanaanayso isla markaana u gasho booskii hooyadii. Gabar ayuu guursaday aabihii. 1 sano kadib waxaa loo dhalay wiil, wuxuuna u bixiyay Raami. Balse Axmed eedidii ma aysan ka soo bixin booskii uu ka filanayay. Waxay bilowday inay u muujinayso nacayb isla markaana ay ka doorbidayso wiilkeeda Raami. Axmed wuxuu sida kula noolaa eedidii muddo 9 sano ah. Kadib Mustafa oo ahaa Axmed iyo Raami aabahood waa uu xanuunsaday. Markii uu arkay inuusan xanuunkan ka kicinin ayuu xaaskiisa u yeeray, wuxuuna ku yiri, wiilasheeda adiga ayaan kugu ogahay, yeesan iga dayacmin, hana u kala eexanin labadeeda wiil. Balse aabahani ma uusan ogeyn in Axmed eedidii ay aad u necbeed, mar walibana ay u muujin jirtay xumaan. Aabihii waa uu dhintay, waxaana isku soo haray Axmed, Raami iyo eedidii. Isla markiiba eedidii waxay la soo baxday dabeecadii xumaa, waxayna ku fikirtay inay Axmed nolosha ku cariiriso. Waxayna bilowday wax waliba inay Axmed u dirayso, xitaa haddii ay tahay habeen saqdhax ah. Markii wiilkeeda u soo iibiso, Axmed ma aysan u soo iibin jirin. Sidoo kale waxay ka saartay iskuulkii, waxayna amartay inuu hawsha guriga u qabto. Axmed wuxuu muujin jiray sabar iyo adkaysi, wuxuuna dareensanaa inuusan hooyo aabba lahayn. Balse maalinkii dambe waxay ka soo burisay guriga. Isaga oo habeen aad u qabo badan wadada socdo ayaa waxaa wadada kula kulmay nin sheekh ah oo masjidka u socda. Markaasuu wuxuu u kaxiyay masjidka. Kadib markii salaadii la tukaday ayuu ninkii wuxuu wareystay Axmed xaaladiisa. Axmed ayaa ugu sheekay odaygii noloshiisa iyo xaaladda uu ku sugan yahay. Odaygii ayaa ku yiri, maanta laga bilaabo aniga ayaa aabbo iyo hooyo ku ah, hana ka walwali noloshaada. Gurigiisa ayuu geeyay, wuxuuna ka dhigtay wiilkiisa oo kale. Kadib wuxuu geeyay iskuul si uu waxbarashada u dhamaystirto. Axmed dadaal dheer kadib wuxuu noqday dhakhtar, waxaana Allah subxaanahu wa ta'ala u barakiyay waqtigiisa. Wuxuuna noqday dhakhtar caan ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in isbitaalka la keenay qof aad u xanuunsan. Dhaqaatiirtii dhan isku dayeen wax ka qabtaan, balse ay ka qoosteen. Kadib taleefan ayaa waxaa loo soo diray Axmed, ayadoona loo sheegay inay jirto qof aad u xanuunsan, isla markaana loo baahan yahay inuu si degdeg ku yimaado. Markii uu yimid ayuu Axmed wuxuu la kulmay qofkii xanuunsanaa. Markii uu waleystay xaaladeeda ayaa haweeneydan waxay ku tiri, wiilkayga cudurkii ahaayo ma aha mid caadi ah. Cudurkani waa mid aan dadka galay. Waxaan hadda ka hor si xun u ciqaabay wiil yar oo agoon ah oo hooyadii aabihii dhinteen oo aan eedo u ahaa. Waxaan filayaa inuu xaqiisa iga soo baxay, mana garanayo si aan ku heli lahaa wiilkaas oo aan cafis uga dalban lahaa. Axmed wuxuu ogaaday inay qofkani tahay eedadii. Aad ayuu u ooyay, wuxuuna ku yiri, eedo, aniga Axmed ayaan ahay, ninkaaga wiilkiisa ayaan ahay, Raami walaalkii ayaan ahay. Waan ku cafiyey, Allana waxaan kaaga baryayaa inuu ku cafiyo dembigaaga u dhaafo. Waxaan rajeynayaa inaad ii noqoto hooyo, isla markaana aan ka helo naxariistii hooyaday. Balse waxaana kala dhaxgalay shaydaan. Eebaha ku cafiyo, hooyaday ayaa tahay, dembigaagana Allah dhaafo. Raami markii uu maqlay walaalkii Axmed hadalkiisa ayuu ku soo cararay, wuxuuna ku yiri, xaqdara ayaan kuugu sameynay, ina saamax. Maalinkii aad naga soo tagtay ilaa iyo hadda gurigeena wax farxada ma aysan soo gelin. Muddo badan ayaan ku raadinaynay, balse hadda Allah ayaa na wada kulmiyay. Waxaan u mahadcelinaynaa Allihii na wada kulmiyay inagoo caafimaad qabno. Qisadan waxaan ka faa'iideynaa inaan mar waliba iska ilaalin xaqdarada, maxaa yeelay xaqdaradu maalin ayay soo baxaysaa, qofka sameeyana maalin ayuu la kulmi doonaa ciqaabkeeda. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan subscribe dheh gamalkan reex si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub oo soo dhigi doono. Mahadsanid.